السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا وناكسن دغستيال برنامجكينا maanta waxa ku qaadan doona insha Allah taala wali waxa gudaha ugu dirnaa unit-kii ka hadlay arrays wali way qaybtii ka hadlaysay one dimensional array. marka maanta insha Allah taala waxaan qaadan doonaa insha Allah taala programkan oo ka hadlayo si loogu soo helo array-da hadii ku jirto duplicate waxaan dhahnay number dhowr mar soo noqday tusaale 1 2 3 4 afar shan afar laba mar ay soo noqotay ama konton lixdan laba mar ay soo noqotay konton laba mar ay soo qaadatay nambaradaas waxaa loo yaqaanaa duplicate number laba mar soo noqday iyo qaabkii loo weeli doona insha Allah taala ku qaadan doona barnaamijkan aan soo kicina editorkii wax lagu qoraayo oo div plus ka ah marka hore waxaan qoraynaa insha Allah taala processor key okay waxaan u baahanaanay inaan abuurano array aan dhahno marka int array maadaama userka wax noo soo gelinayo aan dhahno 100 size-kii maadaama userka hore uu soo geli karo ugu badnaan ilaa 100 aan geeyay size-ka oo size-ka wuxuu soo geliyay numberka noo qodan waxaan dhahnaa size kadib waxaan dhahnaa size-ka maadaama uu size-ka noo soo geliyay size-ka noo qabtay waxaan u baahanahay loop oo aydaas ah intaas ayaan u baahanahay okay aan dhahnaa userka noo soo geliyay number printf enter size of array size-ka array-ga ay soo gasho scan f percentage d ampersand waxaan noo qabanaynaa size-ka s aan kusoo gaabinay okay haddaan loop bilaabaynaa loopkaan noogu bilaabno 0 ilaa intuu dalbado oo side s taas ah userka intaasaa liisoo geliyo tusaale 5 number oo baanahay ilaa 5taas number laga gaarayo shaqadan ay qabo I plus okay scan f percentage d ampersand array I okay aan ran garayna intaana tijaabinaynaa si userka nambarada soo geliyo in kale inuu shaqeynayso aan go'aal garaynay okay size-ka array-giisu waa 5 number ma soo geli 1 2 3 4 5 number oo soo geliyo hadda wax ma noo soo bixin waxaan rabnaa inaan noo soo baxdo haddii laba number oo soo noqdo ku jiraan in Allah numberada userka soo geliyay duplicate number uu leeyahay haddaysan ku jirin in Allah wax duplicate ma lahan okay maxaan sameynaynaa waxaan u baahanahay laba loop midna j adana midna I waxaa kale u baahanahay variable noo celinayo jackin adahno oo noo qabanayo wuxuu noo qabanaa hadduu ku jiro waxaan u baahanahay hadduu ku jiro duplicate-ka numberkan ku celina okay laba loop sameyno for loop I ha ka bilaabato 0 I intee ka yartaa size-ka I plus okay for j na ha ka bilaabato I plus 1 markaan dhammeeyo hal mar toos u sharxaynaa si aan u faahno asigoo practical ah j intee ka yartaa size j plus okay if array I dee la faahfaac noqoto dee la mid noqoto array j sidoo kale I not equal j shaqada ay qabo markaas jack la mid noqoto jack plus 1 okay meeshaan markaa kadib ka bax if jack doo la faahfaac noqdo 1
waxay dhahdaa duplicate number uu leeyahay printf waxay soo daabacdaa oo ku dhigay printf duplicate number okay /n else no duplicate number intaan la copy kareynayna kadibna waxaan leeyahay no duplicate number inta waxaan ka hormarinaynaa no duplicate number arran gareyna marka hore saan u faahno okay userku wuxuu dalbaday 5 okay 1 2 1 2 3 laba maraa geliyaysa ujeedaa 4 5 duplicate number isla marka waa nala soo qabtay maadaama ay 3 laba kusoo noqotay okay sida uu shaqeeyay markii inta hore intaa waa isla garanaynay intaana rabnaa inaan ashraxno qaabka uu shaqeeyay okay ay ha ka bilaabato waxaan dhahnay 0 ay yawa 0 ay waxa ahaa numberka ugu horeeya 1 ah j na ha ka bilaabato numberkan 3 ah number 3 j ha ka bilaabato j waa 1 soo ma I plus 1 waa 2 index 2 waxa ay bilowday j index 1 I soo ma index 2 ne j ha ka bilaabato maadaama I plus 1 ah I plus 1 waa 0 plus 1 waa 1 index 1 index 0 index 1 ay bilowday soo ma okay waxa la is barbar dhigaa marka hore marka array I oo ah 1 miya la eg tahay 3 condition kan fiir array I maxaa way array 0 iyo array 1 array 0 waa 1 array 3 na waa 3 miya isla eg tahay may j soo noqo j waxay noqonay I meeqa ku jirto 1 1 plus 1 2 1 ayaa waxa la barbar dhigaa shantan number 1 miya inta mid kamid la faacmay haddana waxa la soo noqon I waxay noqonay 2 j na meeqa noqonay 2 plus okay I markaan inta ka bilaabanay 3 j na waxay ka bilaabanay inta I waxay la mid tahay 3 I meeqa ku jirto indexkeeda meeqa waay 0 index 1 waa dhahe j index 2 index 1 iyo index 2 soo ma okay array I iyo array j waa isku mid maadaama 3 iyo 3 isla yihiin I iyo j isku mid maaha sababtoo ah index I waxa waaye 1 index j ne waa 0 waa 2 1 iyo 2 isku mid maaha sidaas darteed labada condition waa buuxin waxaan ku buuxinay array I oo ah array I meeqa waay array I ayda waxay noo taagan tahay 1 waxaa noogu jiro 3 array j na waxaa noogu taagan tahay 2 na waxaa noogu jiro 3 isku mid ah noqdeen okay indexkooda aad indexka maxaa waa 1 index 2 1 ya 2 la eg may not equal 2 lama eg Barashiote, you